درسكني wuxuu ka kooban yahay درسك كان oo ku saabsiisan الزهد ama فضل الزهد فضلiga ama abaalmarka fiican uu leeyahay zuhdigu erayga zuhdiga fi اللغة العربية waa tagis aad ka tagto wax adigoo xaqiraya ama liidaya ama yaraysi aad wax yaraysato وكانوا فيه من الزاهدين واتي قرآنك kusoo aroortay waxaanay culamadu ku tilmaamaan halka kan in looga dan leeyahay qofka oo ka taga مثلا imaamu axmed raxmatullaahi calayh waxaa laga soo naqlinaya inuu yidhi zuhdigu waa tarku maa laa yanfac fi laakhira waa qofka oo iskaga taga wixii aan aakhiro wax taraynin الإمام سفيان الثوري إمام المحدثين في عصره أحد أمراء المؤمنين في الحديث أي سنوح لي الزهد في الدنيا قصر الأمل زهدك الدونك لغا زاهدا معناه يدوح ويان أملك يرجد وقفك كقبا وصاقا بيه وأدر انتدى دونك نوحتك إياه أو يرئن يهي إمام الجنيد ومن علماء التصوف هانوح ليه الزهد هو استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب زهدي قال الشيخ يا بولي وادونك وكل الليته أما كل يراده أدونك كالقعل كيسية شعيل كيسية رات كيسة واد قلبي كما يدبو ليه erayadaasoo dhan marka aan soo koobno zaahidka la sheegaya waxa weeyaan waa qof aan adduunku qalbigiisa degin gacantiisa se waa degi karaa waxay culimmadu yidhaahdaan zuhdigu faqri maaha yacni macnaheedu maaha qofku inuu faqiir noqdo waayo waxaa jiri kara bay leeyihin qof faqiir oo aan zaahid ahayn waxaa kaloo jiri kara qof haniya oo xoola haysta oo aan zaahid ahayn labaduba waa jiri karaan zuhdiga rasmigii markaa wuxuu yahay qofka adduunyada iyo aakhiro intuu isbarbar dhigo aakhiro ay la mudnaato ama se jeclaada adduunkuna uu la yaraado ama si kale haddaan u tilmaamno waxa weeyaan qofka oo adduunka wakhtigu ku bixiya uu ka yar yahay wakhtiga uu aakhiro ku bixiyo waayo agtiisa aakhiradaa la weyn marka aakhiro wakhtiga uu ku bixiyo ayaa ka badan oo ka weyn adduunka wakhtiga iyo xoogga iyo juhdiga uu ku bixiyo mawduucan iyo ka warankiisu waa mawduuc culamadii muslimiintii hore ay aada u lafagureen oo dhan marka laga eego kutub badan oo mustaqila leh kutub badan oo gaara oo magaca zuhdiga wadata oo weliba culamadii hore qoreen مثلا الزهد لابن هناد أما الزهد لإمام أحمد أما الزهد لوكيع أما الزهد لابن عبد المبارك يعني ابن المبارك مركا لا يغو علماء هو تراد بدل لكتابي قرين أي ما يعكنوا بحيين هدي لا يغو كتبت واوين إسلامي أنا دمانتود كتاب الزهد وباب كمده ومركز صحيحين كي السنن كي كوا يكتنا واحد ليس باب ترى بدن مركز يكتو كتبت الله قلت لك علم السير والسلوك أما علمي دغنك يا علماء كورنته دتك بدأ الصوفية كت المامان دتك بدأ علم السلوك كت المامان علماء كتبت دون آد بعانقية كالإمام الغزالي أما wixii ka dambeeyay culimada baabka wax ka qori jiray tirada badnaa
markaad eegto kutubta dadka agtooda mutadaawilka ka ah waa ku tiro badan yihiin oo maalan kitaabka xadiidka aan odhan karno male waa ugu caansan yahay dadka caamada iyo muslimiinta dhexdooda ee riyaadu saalixiinka loo yaqaano baabab dhan baa ku yaalla oo uu zuhdiga kaga warramayo idan baabkan marka aan ka warramayo ma aha inaan cilmi soo gudbiyo ee waxa weeyaan inaan isxasuusino inta uu wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin yahay baa waxay ka badantay inta aqoon cusub lagooga sheegi doono zuhdiga markaan halkan ku tilmaamayna waxa weeyaan waa qofka mu'minka ah oo adduunku uu la yar yahay oo aan acmaashiisa aakhiro marnaba adduunku dhaafinin mithaal basiita ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa waaxalla allaahu albayca waxarama riba ilaahay bayca waa baneeye ribana waa mamnuuca idan baycu waa wax xalaal oo dadka muslimiinta u bannaayin inay qabtaan laakiin ilaahay dadku tilmaamay wuxuu ku tilmaamayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami asalaa rag buu alla tilmaamaya subxaana wa tacaala aanay ka mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo xoolo kororsigu marnaba aanu dhaafinin ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo weynayntiisa zuhdiga marka aynu sheegayno kow waxa waasala inaynu nusuusta qur-aanka u fiirsanno qur-aanku in badan waxa ku soo arooray iyadoo laynoo tilmaamayo adduunka iyo yaraantiisa adduunka iyo wakhtigiisu inuu kooban yahay adduunka iyo inuu wax xaqiran oo aan buurnayn yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inamaa mathalu alxayaati addunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ربي وحليه سبحانه وتعالى adduunkan dada waa ku nooshiin wuxuu la mid yahay sidii roob da'ay oo dabeetana dhulka qurxiyey oo markuu qurux batay dhulkii ilaahay subxaana wa tacaala uu haddana tirtiray اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى أنتم الدنيا كورموا حين لا يوحى وقاتان دنيا دون شان شيء تعي shanta shay waxa lagu tilmaamay inay tahay cayaar iyo lahwiga dadka waaweyn wax la isku madadaaliyo iyo ziine iyo wax la isku qurqurxiyo iyo waxoogaa la isugu faano iyo in xoolo iyo caruur badsiya waa intaas baa ilaahay yidhi intaasoo dhammina waxay la mid yihiin baa ilaahay kamathali ghaythin acjaba alkufaara nabaatu uma yahiiju fataraahu musfara sidii roobkii soo daayay baa alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala qur-aanka markaasi waxaa ku badan oo aynan soo koobi karayn oo u baahan inaynu garanno waxa alla inoogu celcelinayo adduunku inuu wax yar yahay oo dhammaanaya qofka muslimkii markaa inaanu wakhti badan iskaga bixinin ilaahay wuxuu leeyahy zuyina linnaasi xubu الshahwaati min الnisaa wاlbaniina wاlqanaطiir الmuqanطaraةi min الdahabi wاlfida والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب انت إلهي سوى الراعية دونك وحيا لوردن دمر عرور ذهب فضة سيلفر بيره ضل حالة وحكستو بن آدم كوادون دغضا انت الله يسكدري أيها إلهي وحولي انت صردن مرك الله يسكدره ومتاع الحياة الدنيا ووحير أو لغو راحيستا دونك كوركيس لكن والله عنده حسن المآب إلهي اكتسا وحيا لما الله نغضى ماشي وغفي عني قرآن إلهي وحين يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ضد وحيد مشغوليي بطشو
بدي باكو مشغول سيبا إلى هيلي إلا حباشة بكتجيسان إلا حباشة كتجيسان بتصو أيدي مشغول سي إذا قفك مؤمن كاهي زهدي قال قربا وحويان إنو قرطوه ما عندكم ينفد وما عند الله باق waxaan aynu hayno oo dhami wax yar oo dhamaanaya inuu yahay oo waqti yar ku dhamaanaya waxa hadhayaana inuu yahay wixii alle agtiisa yaala saadaraadada culimadu waxay yiraahdaan zaahidnimadu waxa weeyaan qofku wuxuu kala dooranayaa raaxada adduunyo raaxada aakhiro iyo ma la horumariya teeba mudnaanta leh qofku wuxuu kala dooranayaa waxa gacantiisa ku jira iyo waxa gacanta Ilaahay ku jira keeba mudnaanta leh ma inaad adigu gacantaada ku urursato xejiso oo aanad ogolaanin shilin ka baxaba mise inaad Rabbi u dhiibato gacanta Rabbi ay kuugu jirto keeba mudan nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo rabaynaya xadiidka saxiixaynka ku soo arooray أبا عبيدة بن الجراح صحابي اللي أورنجري أيوه حالك صادري بحرين تن أنت بدنا حديث أي شيء كتاب علماء ده واحد هذا ومنطقة الشرقية دول كلمة السعودية لا إلى هذا منطقة الشرقية وحصل ما بحرين اللي أورنجري حاله صادر دبتنا أنصارتي مدينة وحلا مغلي النبي حال الله صادري kadib baa salaadii subax dadku masaajidka soo buuxiyeen oo nin waliba nabiga istusa xoolo yimi ansaartiina masaajidkay soo buuxisay iyadoo nabiga la istusayo calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ka baxay ayuu arkay dadku sida ay isu muujinayaan qof waliba uu rabo inuu nabigu arko markaasuu dhool la cadeeyay dabeetana wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inaa maqasheen Abaa Cubayda inuu xoolo soo diray warkaasi inuu idin soo gaadhay iyaan u malaynayaa inuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ajal bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisii oo haayo warkaasi waa noo yimi wuxuu nabigu ku yidhi abshiru waamilu maa yusrakum bushaaraysta oo rajeeya horta wax idinka farxiya لكن إلهي بان كل دار تابو النبي يقولين أنا نقول فقري إذا كعب سقبين إن فقري واحد ياله صحابة وعين كان كلية هاي والله شيء يكون نولاين هدي لقو قيمين لها تن ما أنت إنه شيء كأنه واحد نقول الله إدمالها الله إذا هذا قاعد شكد الله عضي الدنيا ده هو قرمته نلا شو ده عادي كتاسه وهي مساجد رقدنا أنت يسوق لان قيبة بدني ويري هيبا نين لبا قو له بل هذا واحد قياسا مجتمع دانو تكرر يوقف لبا قو هايستابا ويري قو قودا قورتا كو خيدانو دبتنا لسي دايو ولبا قو رقا قاركود marka qoorta ku soo xidhaan aanu dhudhunka uun xaqiisa sare gaadho intuu go'iisu dhararkiisu aan qawgiisa gaadhi karaa ay wax tirsanaayeen waakii Jaabir ibn Abdullah bari dambo la xoolaystay ayuu intuu dharkiis ka dhigay buu go'i raas ku soo maluuqayo uu tukaday markaas mi taabici yiri yaa ilaahi ka xishoonin waa maxay marada yareed seeta maradan kaliga yaani masalaad baa ku asaxayso kale macnaa dabeetana Jaabir ibn Abdullah baa wuxuu ku yiri ahmaqaaga soo kala rabayran wuxuu sheegay buu yiri oo nabi maxamed ragii la noolaa wax laba goo haystaaba may ku jireen buu yiri يعني وحاو تلماميا هدنا النبي محمد وحكولي عليه الصلاة والسلام فقري إذن كما عبس قبوه ويا إنسانكو إنت بدن مركو فقير كي يمكبرو قرمو بني آدمكو كبرا إنت بدن ومركو حولا حلو ومركو لعكتا حلو قرآنكو وحو تلماميا أنبياء ددتكي بينين شريا وبدنايا الملأ ميل هدي لها لاقي إلهي وحد أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الغول انت وحيسته أيا أما مدح لو قد جري أما انت أسوريري شرتي وفاسقنا ما انت إلا ما دام بقى لها لاقي شري سبحانه وتعالى سأقرأ كتل المامي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بإلهي
reer nebi aadam waa qooqaan baa la yidhi, waa kibraan. qooq iyo kibir waxay gaadhaan goorma? an ra'aahu istagnaa baa ilahay yidhi, markuu moodo inuu kaaftoomay, wax ku filan inuu helay. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, xoola la-aan idinka biqi maayo. walakinii akhshaa an tubsada addunya calaykum, waxaan idinka cabsi qabaa buu nebigu yidhi in adduunka laydin furo. faqri idinka cabsan maaye, in adduunka inta laydin furo sidii kuwii hore loogu furay oo ugu loolantaan siday kuwii hore ugu loolameen oo u halaagsantaan siday u halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyo jacayl inay isugu marataan baan ka cabsi qabaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. amaa faqriga cabsi idinkama qabo.